sonra maxay ardayda micnaheeda kadib önce kahor çok güzel peki marka aad joogto magac yani isim waxaa isticmaalaysaa dan den tan ten kabacdi waxaa ku daraysaa sonra ama önce hadba kaad adigu markaa ka hadlayso waa markii la joogo isim tusaalaa ka bixin doonaa isla isimkii baad joogtaa laakiin markaan waxaa rabtaa inaad isticmaasho önce ka hor dan den tan ten önce baad keenaysaa qaybtan labadanna goorma isticmaalayaa waa markaad ka hadlayso fiil bu da aynı şekilde fiil way şöyle yazıyorum bu da aynı şekilde fiil tusale mid walba örneğiisa ka bixinna şurada yazıyorum qof baa wuxuu dhihi rabaa okul halkaa waa banaynayaa eve gidiyorum iskuulka kabacdi yani isumaa ka baxa kabacdi gurigaan aadayaa uu dhihi rabaa qofka suu leeyahay okuldan sonra eve gidiyorum. Okul waa haystaa iskuulkii waa magac okul waa eegayaa afartaa kee ku habboon dan halkaa maxaa leeyahay okul kalarkaa bedelo hayır neyse şuradan yazıyorum evet okuldan sonra ama markaa micnaha ay samaynaysa jumladda maxay noqonaysaa iskuulka sidii toban baa ka dhigiya okuldan sonra eve gidiyorum maxaa ku daray magaca kabacdi soo maaha ardayda qof meel fadlan codka inoo xidho teşekkür ederim arkadaşlar maxaa niri okuldan sonra bak okuldan sonra eve gidiyorum Soomaaligeedana waa maxay iskuulka kabacdi dugsiga kabacdi guriga ayaan aadayaa soo maaha markan waxaa rabaa inaan dhaho iskuulka ka hor yada guriga maxaa dhihi karaa jumlad noocaas oo kale ah raadino şöyle evet tamam biraz değiştiriyorum wax yara ka bedelaya oraahda waxaan rabaa inaan dhaho iskuulka intaanan aadin ka hor layliga ayaan ka shaqaynayaa markan waa maxay ka hor baa isticmaalayaa soo maaha okul halka waa baneeyey gidmadan önce hayır bak ficil maaha magac baa isticmaalaya markan yapıyorum peki nasıl yapıyoruz cümle daha ka dhisaysaan haye okul diktaan hayır keliya maxaa isticmaalaysaan arday anaa idiin sharaxaya si fiican loo dhegeysto okul halkaa baa eegaya dan den kee ku habboon kabacdina önce oo ka hor ayaan keenaya iskuulka ka hor layligan ka shaqaynaya layligan samaynaya bay dhahan iyaga maxaa leeyahay okuldan önce waa inta halka dan den tan ten way ku noqon kartaa iyadoo ay ku xidhan tahay shaqalka u dambeeyo qoraahda aan ku dari rabo magaca aan ku dari rabo intaa waa marka aan joogno magaca jumladda maxay ii noqota marka aan af soomaaliyeyno iskuulka ka hor dugsiga ka hor layligan ka shaqaynaya wakuka şunun rengi de kırmızı yapıyorum. Muxuu yidhi qofka okuldan önce ödevimi yapıyorum. Sonra markaa isticmaalayna maxaan yidhi okuldan sonra eve gidiyorum. Jumladda anigaa micno u yeelayo waxaa ka hor waxaan qabto tamam ma yani waa magac markaa okul baa ku darna soo ma ahayn şimdi ficil baa waxaan rabaa inaan sonra ku daro
sidee ficil ugu darayaa iyana aan isla eegno tusaalaha iyo af Soomaaliga anigoo qoray wadada ugu fudud aan ku sharxi karo peki waxaan leeyahay Busafar waxaan dhahnaa eve gitmek baa soo qaadan tamam mı şöyle dışarı da gitmeden geziyorum mesela. Intaanan guriga aadin kor banaankan yara wareegaa uu qofka dhihi rabaa soo maaha ha çok güzel markan meesha waxa yaala waa maxay aan ku dari rabo waa ficil gitmek ah sidee ugu dareena wuxuu ku yiri gitmeden pardon düzeltiyorum waa isdaba mariyay şuradan anlatıyorum qaybtan sharaxaya hadeer digtan sonra u soo laabanaya yani maxaa dhihi rabaa inta aanan guriga aadin ka hor markan waa ficil inta aanan guriga aadin ka hor banaanka ayaan wareegaa eve gitmek bu ahaa efe meegtaa ka saaraya git baa haystaa Git. labadaa kee ku habboon Gitmeden. adiga u raacaya Madan waxaa u fiirinaynaa gitmeden önce. çok güzel waxaa u fiirinaya ii sheega sabab aan madan u dhahdeen sabab aan madan u dhahdeen go-aankaasee ku qaadanaya بعد kalın u eegaya soo maaha ha afirin kalın